Asalaamu calaykum soo dhawaada qaybtii labaad ee git ignore-ka qaabka loo isticmaalo. Marka qaybtan waxaan samayn doonaa caqabadaha ka iman kara markaad isticmaalaysid git ignore aba aniga iga hor yimi intii aan coding-ka waday. Marka maalintii hore waxaan baranay qaabka faylka git ignore-ka lagu rido sida hal.js maalintii hore aan samaynay. Waxaan tusi doonaa caqabadaha ka hor iman doona. Marka iminka waxaan isku dayi doonaa faylka labaad aan laba.js inaan git ignore-ka isagana ku ridno. Marka waxaan arki doonaa waxa inaga hor yimaada caqabada markaas xalin doonaa waxyaabo ka hor iman kara. Sidii hore video-gii hore u aragteen marka doonaysid inaad fayl ku dartid git ignore-ka waxaad odhanaysaa slash iyo faylka magaciisa. Faylka magaciisa oo ah laba.js waa kaan doonayna inaan ku darno. Kabacdi markaad saas samaysid waa inaad ku push garaysid github-ka. Ka steps-ka amba waxyaabaad raacaysid intaan markaad ku push garaynayso waxa weeyaan waa git add macnaa faylalka oo dhan baad ku daraysaa. Dash-taas full stop-taas waxa weeyaan waa all files waa dhammaan faylalka oo dhan ma kala reebayso. Git commit waa inaad commit garaysaa waa inaad tiraahid waxaan ku darnay laba.js git ignore marka Soomaali baan u qoro laba.js ayaa lagu daray git ignore enter kabacdina git push origin waxaad ku push garaynaysaa masterta u dhameeyey kabacdina refresh gareeyo. laba.js waa faylkii weli muu qarsoomin marka waxyaabaha caqabadaha ka hor iman kara waa kaa. Hadda inagoo laba.js ku ridnay git ignore-ka ayuu haddana weli faylku halkaa yaalaa. oo git ignore-ka haddaad ku dhufatid laba.js baa bartaa ku qoran. Waxay ahayd inuu faylku qarsoomo laakiin faylku weli muu qarsoomin weli bartaasu yaalaa. Marka caqabadaha ka hor iman kara waa taa. Maanta hadli kari maayo. Marka sidaad arrintaa u xalisid waxa weeyaan waa inaad samaysid git baad qoraysaa rm/rf/cache amba full stop ayaad odhanaysaa markuu saas kale kugu shaqayn waayo intaas kaliya aad qoraysaa kabacdina steps-kii aad samaysay dib u soo bilaabaysaa. Ama samaysay git add oo step-tii ugu horeysay marka hore aan sameeyay git add oo git commit waad ku commit garaynaysaa kabacdi waxaad odhanaysaa laba.js file ayaan ku daray git ignore kabacdina waxaan ka tegay /m baan ka tegay xagga git commit /m laba.js ayaan ku daray git ignore enter kabacdina ku push garaya masterta git push origin master right u dhameeyey markaan refresh garaynaa waa faylkii laba.js uu qarsoomay. Marka hadday caqabadaas ka hor timaado waxaad odhanaysaa git rm/rf/cache full stop baad odhanaysaa. Maxaad ku aragtaa labadii fayl bay ku jiraan. Marka intaasaa kusoo koobayaa maanta. Asalaamu calaykum.